waan khlaan waxaan ka mid ahay qaxootiga oo Masar ku nool Cairo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا حرب أنا كل شيء عاوة هداتها يوتيوبر لي أما قبل يوتيوبر لي هداتها هي وحرب أنا كل شيء بشارة أدو ونكسن أو كرجج لنساء هم يجانا كل سوق قاضي خاصة المركز هاي أنا أو كلا يدل لمدة أو يوتيوبر كودا وهوسية أما سبسكرايب كودا وهوسية أما سبسكرايب كاغو أودي ليفل كيسو وهوسية وبقول يوحي كوسية هي وحنكو وضع iyo boqolka wixii ka sareeya xataa waxaan ku wada bishaaro mid ugu qiimo badnayd mid ku rajo gelinaysa oo marnaba daalaynin ayaan ku wada talo maxay tahay arintaasi waa walaalkeen Nakhlaan bal ila dhageyso marka soo ujeedid aniga horta waa jeeda nus nafaran ah yani tabartayda ma ina wax xamaala wiilka la yiraahdo Nakhlaan waa wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah af Soomaaliga aad u yaqaana luqada carabiga aad u sii yaqaan ayadana oo waliba luqada carabiga ee lahjiga ama lahji misri ha noqdo ama lahji yemeni ha noqdo labadaba yaqaana way Nakhlaan waxa dhashay hooyo Soomaaliyeed ayaa dhashay waxa kale oo dhalay aaba Carbeed oo yemeni ah ayaa dhalay laakiin waa wiil af Soomaaliga qani ku ah oo in badan oo Soomaali maxdi ah oo iska dhal ah ku noqonaya maaragtay af Soomaaliga ka yaqaana wiilkaasi qaxoonti wuxuu ku yahay wadanka Masar ayuu ku yahay qaxoonti khaasatan caasimadda ayuu joogaa wiilkaasi wuxuu sameeyay markuu wadanka tagay shaqooyin hoose ayaa jira oo dadku qaxoontigii ka shaqeeyaan xamaal iyo wax noocaas isagana waa nin caata ah sida uu ku sheegayo clipkiisa dhageyso oo hoos ka shaqeeyso marka soo ujeedid aniga horta waa jeeda nus nafaran ah yani tabartay Nakhlaan warkiisa waad ka bogatay wuxuu leeyahay aniga nixiif aan ahaa qof oo waxaan ahaa tabar yar oo aad aragtaan oo jab abaan ahaa oo nus abaan ahaa maca dalika maanan awoodin shaqooyinka xamaaliga inaan ka soo baxo maxaan sameeyay buu yiri waxaan bartay buu yiri kaamerooyinka iyo waxyaabo sida loo hagaajiyo ayaan bartay buu yiri maalin maalmaha kamid ah waad ogtiin buu yiri youtuberka haddaad rabto inaad youtuber noqoto youtube-ku markaad furato isla markaaba wuxuu yiri ma soo kaco oo subscribe-kiisu cirka ma galo inaad intaad channel furto channelki uu markaba kuu qarxo waxay u baahan tahay buu yiri mashaakil iyo caqabad baa ka sokeeya waxay u baahan tahay sabir bay u baahan tahay waqti inaad ku bixisay u baahan tahay buu yiri isagoo arrinka ka hadlaya waa kan waxaan ku bilaabay 2016 aan ka fikir inaan YouTube sameeyo YouTube-ka ogtiin easy ma aha marka wuxuu yiri arintaas marka aan aniga ogaa buu yiri inuu channel ku ciyaar ku kicin oo channelka aan lagu gaarin guushiisa iyo inaad ka sameeyso noloshaada horumarka ka sameeyso ama ha noqoto shuhrada iyo caanbaxa aad ku caanbaxayso adduunka meel kasta laga barto ama ha noqoto inaad dhaqaalaba ka suubin karto ama ha noqoto wixii aad haysay ee macluumaad ahaa ama aqoon ahaa inaad dadka ugu gudbiso oo kulligoodba saddex qayboodba aan ka hadlayba iska agimanayo laakiin wuxuu yiri maalin maalmaha kamid ah baan furay 5 bari markuu ii furnaa buu yiri waxaan gaaray buu yiri 120 kun oo subscribe baan gaaray buu yiri 5 bari gudahood waa qof aan dhihi karna nasiib buu lahaa runtii wuxuuna ahaa qof shaqada ka dhab tahay إنما الأعمال بالنيات ومدينو حالي كهليني كل كان ونستحين إني قبل الصوماليات قاشا نقطي أما نغنك حميد marka wiilkan qasad bulaha vision bulaha wuxuu lahaa mustaqbal buu higsanay shambari wuxuu yiri maxaa i gaarsiiyay 120 kun inaan gaaro buu yiri waxa i gaarsiiyay buu yiri inaan soo qaato ciyaaraha bamjiga la yiraahdo oo aad loo ciyaaro oo dhalinyaradu ciyaarto ciyaaro macruuf oo aad loo yaqaan ah ciyaarihii sida uu ina tusinayo ayuu ka galiyaa telefonkiisa oo telefonka laga sameeyo wuuna iska duubay oo kaamiradiisii buu dhigtay iyo wuxuu iskaga duubay alladu iskaga duubay buu dhigtay wuu iska duubay kadibna wuu galiyay dhowr video markuu galiyay iyo video hore sidoo sheegayo ayaa wuxuu gaaray 5 bari gudahood 120 kun oo subscribe bal ila dhageyso AdWords موقع kala dhahay AdWords kalimadan ku soo qaatay waa sii geli waan fiiri ma sha Allah hadda 5 bari dhaxdooda runtii aniga idin la hadlaya adiga dhageysanaya gabar iyo wiil waxaad ahaataba walibana subscribe-kanu uu aad u hooseeyo
waxay u tahay arrintaasi dhiirigelin ayay u tahay aniga runtii waxaan jecelahay dhallinyarada thaqaafooyin kale ka baxsan thaqaafada Soomaalida inaan marar badan caqliyaad ka soo qaadana technology-ga markii la yiraahdo iyo waxyaabaha horumarka laga sameeyo hadii la yiraahdo business-ka hadii la yiraahdo inaan dadka ku dayano sababta aan saa u yeelaya maxay tahay Soomaalida aqoonteedu horta way hooseysaa laba aqoonta ay bartaan waa aqoon inta badan daakhili oo aan ahayn khariji ama ufuqi wax la dhaha aan ahayn waxa laga yaabaa ninkii jaamici weeye wuxuu yaqaanaa isheeg waa magister waxa weeyaan doctora qaarkood waxaa laga yaabaa inuuna carabi garanaynin waxaa laga yaabaa inuuna garanaynin english iyo luqooyinka waaweyn ee lamidka inuuna aqoonin baa laga yaabaa cilmiga wuu yaqaanaa laakiin luqooyinkii tawaasulka ee caalamka waaweynaa ma yaqaano khaasatan alcarabiya walinjiliisiya ma yaqaano laba Soomaalidu waa umma badaawi ah oo geel iyo xoolo iyo ari bay dhaqan jireen inta badan cilmiga technology-ga la yiraahdo waxba kama yaqaanaan technology-gu basically iyo wuxuu leeyahay iyo qayb sare ayuu leeyahay qaybaha hoose waxa kamid ah inaad muuqaalo qurxo intaad samayso inaad muuqaalada quruxda badan ee samayso iyo idea fiican oo ku samayso raacsan inaad iyo codkaaga quruxda badan dabcan iyo kalsoonidaada quruxda badan inaad u gudbiso dadka sidaad u gaari lahayd arrinta noocaas Soomaalidu ka gaari hadaad waraysato ee xogaa horumarka ka sameeyay ee laga yaabo ugu badnaan 1 milyan inuu gaaray oo subscribe Soomaalidu eeriyada kama badna markii laga reebo wiilkeena Nakhlaan aan abtigana u nahay wiilkeenina ah Soomaaliga ah Carabta ah ee isku jirkaas isagu sheegaya muwalladka ah balina dhageysta marka uu sheegaya muwallad baan ahay ma taarif ana abuy yamani wa ummi Soomaaliya وأنا أعتبر مولد هذا نوع جديد أول مرة تسمعوه في ناس تعرفه وفي ناس ما تعرفه سمعتوا شخص يقول لكم ويلكي ناس أو كلا 11 مليون إيا تضباطا إيا كن أو سبسكريب بوهيستا 2016 كي أيونا بالله بي يوتيوب isaga oo dhibaato iyo nolol xun oo qaxoontinimo oon baasaboor lahayn oon wax sharciyo lahayn oo meesha ku joogay laakiin gul buu ka gaaray waxbarashadiisii sideedaba YouTube markaa samayso kaliya waxa soo gudbinaysa aqoontaada iyo waxa dalaalinaysa kaliya maaha hatta qalabka iyo aalaadkan kayfiyadaad u isticmaali lahayd muuqaalo qurxoon ugu gudbin lahayd oo hatta noloshaada hadad YouTube-ka iska daysa aad ugu dabari lahayd ayaad ku baranaysaa macnaha farsamada gacanta waxa la yiraahdo waxa ku sahlaya markaad shayga u baahantahay ku dhex jirto way ku sahlaysaa inaad markiiba barato wiilka marka Nakhlaan wuxuu leeyahay channel-ka la yiraahdo mush macquul waa 2 milyan iyo 7 iyo 1 kun oo subscribe buu haystaa Allahu akbar waa wiil Soomaali ah waa macnaha waxa dhig karna qof Soomaali ah oo af Soomaali ku hadla oo ka sareeya ma jiro hal wiil baa jira oo la leeyahay waa Soomaali laakiin caalamul islaami ama Arab iyo Ajami ba lagu weerarsan yahay wiilkani waa wiilka Kuwait degan ee loo yaqaano Abu Falah haddana maalmahan mashruuca khayriga ka wada Dubai waxaan rabaa inaan kuugu soo khatimaha qiso yar oo walaalkan caqabaadkii uu la kulmay Nakhlaan uu sheegay qisadaas waxa weeyaan uu sheegay Nakhlaan wuxuu yiri maalin maalmaha kamida markaan deecaan baxay ee uu dhaqaale sameeyay ayaa waxa la iga cazumay buu yiri Dubai barnaamij ka dhacay waxa la isoo diray buu yiri martiqaad iyo invitation baa la soo diray laakiin qaxoonti baan ahay waxaan ku baxa ma haysto qaxoontinimada ii diiday bil iga hor istaagtay laakiin cidna hadda maanta muxuu uga baahan yahay waxba uga ma baahna wuxuu sameyn karaa bishii lacag 40 iyo dhowr kun ilaa 50 kun oo dollar gaaraysa ugu yaraan way imagine waa wiil Soomaaliyeed marka waxaan idin sheegayaa aan ku dayana aniga gabadha walaashay wiilka walaalkay aan ku dayano walaalkeen Nakhlaan oo Soomaali oo haysta YouTuber oo haysta 2 milyan 7 iyo 1 kun haysta ajiib marka barnaamijtiisana runtii waa barnaamij akhlaaqiyadka iyo diinta kulligeed ka agdhow weeyaan wax yar oo kamid ah haday khilaafaan dhalinyaranimadka iyo laga yaabo marka aan ku dayano barnaamij fiican aan keeno higsi fiican aan samayno maanta intaas aan rabaa inaan idin soo gudbiyo shukran